بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. waa kelimadii labaad. waxaan inoogu dambeysay maadaama uusan whatsappka wax badan qaadi karin baan yaryaraynaya. saas weeyaan waxa igu keena waa isku hal kelima le weeyaan. kelimada oo labaad waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo, waxaan ka soo hadalnay markii gaalada la yidhaahdo wax allaale wixii cuquubo lagu mutaysa lahay oo dhan inay sameeyeen, fursaday ugu badbaadi lahaayeen inay ciqaab guud kuwada dhacane waxay ahayd in muslimiin mustakfiriin oo cibaadada ilaahay diintiisa ku toosan ay joogaan. marka mukhaalafadina way sameeyeen, fasaadkiina ee muslimiintana oo ilaahay caabudi lahayna door weyn bay ka cayaareen gaaladii inay caqiidadii ka fasaadiyaan, akhlaaqdoodii ka fasaadiyaan, dowladihii ay lahaayeen ay ka burburiyaan, xayaatadooda dhan ay ka kharibaan. waxay ula jeedaan muslimiinta xataa laa taquum lahum qaa'ima, waxay u arkaan inay khatar ku yihiin oo ayaga ay diintooda ku faafinayaan, ka hortag bay u samaynayaan. marka taas waxay ka dhigan tahay gaaladii haddii mukhaalafadina sameeyeen, ciddii ilaahay cadaabka ugu badbaadi lahay ou ilaahay yidhi wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun, ilaahay ma cadaabayo kownka cadaab caam eh haddii la helo qaar oo ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya. marka haddii labadiiba isku sameeyeen inuu ciqaab yimaado shay iska oo abiici ah waay. waxay intaa u samaynaan gaaladiina waxa waaye waduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa. waxay jecel yihiin sidai ayaga gaalo u noqdeen in idinka dhigaan. wax maanta meesha jiro waa fasaadka kan ugu dambeeya waa noo imaanaya, isla markii waa lagu bilaash weeyaan. baynamaa cilmiga iyo waxa naafica ah waa nagala xabisaya, ma arkaysid. waa xasidnimo iyo cadownimo weeyaan. marka labadii ay sameeyeen muslimiinta diintoodii ay inay ka kharibaan ay isku dayeen, waxa ay ka caano maaleen marka inuu cadaabyaalkan oo kale inuu yimaado. liannahu ilaahi wuxuu leeyahy walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahlih. makriga dadka xumaanta ah iyo dhagarta aad ku fulinayso fi nihaaya aduu kugu soo laabanaya. muslimiintan xasada diinta ka fasaadiya waxay keentay in ciqaab guud ood khatar u tahay in qeyb ka mid ay kugu dhaco. marka waxa weeyaan haddii mukhaalafadii la sameeyey sababtii oo looga hortegi lahayna la waayay, inuu ciqaabta yimaado shay abiici ah waa taa. horta waa midda aan raba inaan gaalada kelimadooda ugu gaabsado. muslimiinta markaan imaado badigood islaamka magacun bay ka yihiin, laakiin afcaashii iyo aqwaashii islaamka way khilaafsan tahay. maanta waad aragtaan muslimiinta maanta joogto, haddii lasoo bardhigi lahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maanta wuxuu arki lahaa wax magac islaam mooye inaysan ficil iyo islaam meesha joogay inuusan jirin. intii yarayd oo islaamka haysan lahaydne waxa weeyaan islaamkooda inay ku dhaqmaan oo diinta ay qabsadaan oo ilaahay caabudaan waa lagu horyimid. sucuubaad oo gudaha ka haysato iyo mid dibadda ugu darsoontayba waan ognahay. maanta muslimiinta heelka ay marayaan dhibka haysato ilaa hadda maanta hindi uu leeyahay nin muslina jinsiya hindi maba haysan karo, waa inuu naga baxa. qolada oo gaalada kale oo wadamanka kale ku noolna jinsiya waa siinaynaa, heerkaas bay maraysaa. ayib, marka cadaabkaas oo kale inuu yimaado abiici waaye. marka cadaabkii waaba soo degaybo. cadaab hadduu yimaadane cama taalixa wasaalix. cadaab hadduu yimaado nin wanaagsan iyo nin xum kala qaadi maayo. waa maanta waxaad aragtaan cudurkaas nin taqi ena waa ku dhimanayaa, nin gaal ena waa ku dhimanaya, nin faasiqana waa ku dhimanaya, liannahu marba uu soo degay. laakiin hadhowta qiyaamada waxaa lagu kala duwan yahay, ninba siduu yahay baa la soo saaraya. ilaahi wuxuu ihi wattaquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa. warka cabsada inay musiibo idinku dhacdo oon gaarku noqon doonin dadka sabab u ah fitnadaas inay timaado, ee cadaabkaas inuu yimaado. oo macnaha waxa weeyaan ninkii sabab u ahayna waa ku dhaca, adigana waa kugu dhaca. marka waxaa la rabaa inaan wada shaqayno, inaan kulligeen wada badbaadno, in loo shaqeeyo. laakiin wax la leeyahay gaalada gooni ha u taabato annagana waan ka badbaadaynaa ma jirayso. walidaalika zaynab waxay tiri nabigay weydiisay umulmuminiin anahlaku wafiina saalixuun,
markuu nebigu uga sheegay ciqaabka iyo dhibaatada imaan karto markaasuu tiri ma halaagsamayna anoo dad fiican nagu dhex jiraan. nebigu wuxuu uri nacam idaa kahura alkhabath, haddii xumaantii uu bato waa sax weeyaan, dadkaas yaroo saalixiinta qaliilka ah daraaddeed cadaab laguma reebay. ayib, marka cadaabkii waa soo degay, waa ina isweydiinaa maxaa sabab ah. waxaa laga murugoodaa waxaa weyaan gaala maanta cadaab kastoo ku soo dego intay fiiriso war waa khaldanay aan dib u laabana meelay ka tiraa male, liannahu masaafada ay soo jareen iyo diin la-aanta haysato way iska dhimanay sidii bahaa-imti mooy meelay u noqdaan maleba, maraajic male, diin male, muslimiinta idinka toosan haba la yiraahdo ma jirto, ma aaminsano. marka qoladaas haday doonaan xataa inay soo laabtaan waxay ku soo laabtaanba ma haystaan, adawaadka iyo wasaaishiaba macduuma ah. marka horta qoladaas sidaas weyaan. wailaa ilaahi wuxuu uri dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacalahum yarjicuun. waxa weeyaan ciqaabka waxaan u keenaynaa in maxaan ku iraahdaa fasaadka wuxuu dhulka iyo bariga iyo badda u qabsaday waxaa waaya dadka dulmigooda. marka waan ku ciqaabaynaa buuli ilaahay fasaadkaas aan ku ridayno liyudiiqahum bacda aladii camiluu, in laga abaalmariyo xumaantay sameyn qaar ka mid ah. taa marka waxaan fahamnay in wax kasta oo anaga aan samaynay ciqaab oo u dhigma inaan lana ciqaabin ee wax yar ka mid ah in nagula ciqaabay. oo ilaahay wuxuu uri wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfuu can kathiir. wax badan buu ilaahay idiin dhaafayaa, ma aha dembi kastoo aad gashay in laga jazay, ma aha macnihii saasa u qaadanin. marka ilaahay dembigii aan galno o dhan naguma wada ciqaabin ee qaar ka mid uu nagu ciqaabay. haddii uu dembiga dadka ay galeen ku ciqaabi lahay koonka dhan waa la baabi'i lahay. walow yu'aakhidu allahu nnaasa bima kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba. haddii ilaahay dadka dembiyaalka ay sameeyeen oo dhan u qaban lahaa wax oo koonka joogi lahay oo sii baaqi lahaan lahay maba jirinba. marka taa horta waa mid weeyaan. marka gaaladii waxaan iri raja lagama qaba inay ay soo laabtaan. marka maxaa lagu badbaadi karaa haddii ay gaaladii sidaas tahay, iyadoona baciid ahayn oo mustaxiil ayna ahayn. maanta hadduu cadaabkan ku sii socdo inay muslimiinta u soo laabtaan oo yidhaahdaan war waan khaldane diintana bara, islaamkan wada gelayna. hadda yurub meelaha ka mid ah markii arrinta aada u adagtaatay aadaankiyaa la samaxay in wakhtiyaal qaarkeed la aadaamo, inay gaaladii markay ay maqasho ay ku raaxaysato oo qalbigooda uu ku dego. biri baciid maaha inay kulligood can bakrati abihim ay islaamaan, waxba lama ah ilaahay subxaanahu watacaala inuu hanuuniyo. laakiin waxaan u jeednaa waxa oo camaliga ah oo dhow waxa weeyaan in muslimiinta istijaaba laga helo. farqiga muslimiinta iyo gaalada u dhexeeya waxa weeyaan gaalkii maanta musiibada markay dhacday wuxuu leeyahay waa inaan jibinaa cudurkan, awoodeenna waa inuun isticmaalnaa, waa ina daawo aan soo saarnaa. marnaba ma jirta waad aragtaa ilaahay aanu laabana diintiisii aaway waxmaba jiraanbo, liannu maskaxdiisaba kumaba jirta wax ilaah liiraa iyo diin maba ku jirtabo, shay maadiyaad bas uu ka hadlaya. muslimiinta ninka ugu xuno ugu faasiqsan maanta waxaad maqlaysaa ilaahay dembigan aan galna ilaahay nooma qabto, ilaah cudurkan naga qaad, ilaahayow uu nin kastaba leeyahay. macnaha waxaa weeyaan meelay u laabtaan yaa u baaqi ah oo marjic iyo diin iyo allah iyo ay aaminsan yihiin. taas marka waxa weeyaan haddii ay muslimiinta ka run sheegaan waxaa ilaahay u soo dedejinayaa in ciqaabka nagala qaado, gaaladna sabab aan u noqonay in laga qaado. liannahu ilaahay haddii anaga aan toosnaano dad badan baa ilaahay nagu badbaadinaya. maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum wa kaana allahu shaakiran caliima. ilaahay wuxuu leeyahy cadaabkiina muxuu ka samaynaya, muxuu ilaahay danka ma laha inuu idin cadaabo haddaadba toosnaataan. maa yafcalu llahu bicadaabikum in shakartum, ilaahay cadaabkiina muxuu ku samaynaya ka doonaya haddaadba ilaahay ku shukrisaa. marka annaga waxaan haynaa miftaax alamaan aan heli karnaa inaan ilaahay u dhowaano, aan ilaahay barino. waa kaa oo markay masaa'ib dhacdo ilaahay salaadihii lagu qunuuda wax kasta la samayna. marka ilaahay subxaanahu watacaala wax lama aha inuu ciqaabkaas naga qaado. ayib, ciqaabka ilaahay wuxuu ku qaadi karaa waa nuqto muhiima jiddan waay.
cudurkan suu u socdo maanta iska istaaga ilaahay subxaanahu watacaala waa ka shalay ba asaa keenay maanta wuu istaagi karaa. cuduryaasha badigeed daawo looma hayo, ayagaa iska yimaadaan wan iska baxaan. ka soo qaado absad shay hergebka nagu dhaco daawo loo hayo ama tallaal loo hayo ma jirto. jirka manaacadiisa soo saarna ilaahay baa naga qaaday, marka inuu ilaahay naga qaado waa waarid waay. wuxuu ku imaan karaa addoomankiisa kamida ilaahay inuu tusiyo cudurkan daawadiisa, liannahu ilaahay maa anzala allahu min daa'in ilaa wadaca lahu dawaa calimahu man calima wa jahilahu man jahila. nabigeeri cudur soo dega ma jiro ilaa daawo ilaahay u soo dejiyaa, laakiin dadkii qaarkoodna ma garanayan, qaarna way garanayaan. marka maanta nin gaal ama nin muslim hadduu daawo u helo macnaheedii kama dhigno awoodii ilaahay oo dadka uu taxadinaya waa laga qaalib noqday oo daawaan soo saara. laa saas ma ah, taa ciqaab kalea nugu dhacaya, mid kalea noola soo diraya. inan idhaahdo ilaahay waa noo naxariisto oo cudurkii shalay noo keenay daawadiisana wuuna tusiyey. marka gaal ha arko daawadaas ama yuusan arkin dhib ma laha, waxaa weyaan ilaahay subxaanahu watacaala wuu naga badbaadinaya. marka labadaas miday ku timaadaan, laakiin waxaa caqli xumaa dad qaar baa waxay leeyihiin cudurkan waa taxadi ilaahay, awood waay, wax ka qaba kara ma jiraan. fahmigaas khalad waay, liannahu taas waxay ku imaan karta haddii maanta cid daawo soo saarto awooddii ilaahay maa laga adkaaday? maya, ee ilaahay baa shalay cudurka noo keenay, maantana daawadiisa na tusiyey. sidaas waa. walidaalika iyaysan la aadin fahmiga meel xun, caatifada inta kaa badato oo la yidhaha awooddii gaalada waa la tusiyey, xal dambe oo la helayana ma jirto, taas sax ma ah. waxaan rabaa inaan waxay muslimiinta iyo gaalada kula duwan yihiin. qofka muslimka waxaan nolosha adduunyada keligeed uma arka, aakhira uu aaminsan yahay. waad aragtaasoo qalbigiisa u degan yahay, sidii hadba loo kala taqwo badan yahay, asoo mutamin hadduu dhintana diyaar u ah, hadduu ilaahay badbaadina ku shukrinayo. labadaba waxawaaye uu ku mahadinay. gaaladii waxaa weyaan faraaq ruuxi ah. hadda cudurkan dadka aada ugu nugul waxaa weyaan ninka da-diisa ay weyn tahay 60 iyo wamaa fowq, ama dadka cuduryaal hore usii qabay, ama dad saas oo kale hadda usii badan. qadar ilaahay loo dhintaa, laakiin sabab waaye. gaaladii qadar ilaahay bay u dhimanaysaa, maanta dhibka ayagay ku badan tahay oo aada u dhimanayo. qadar ilaahay bay ku dhinteen, laakiin asbaabta waxaa ka mid waxay ku nool yihiin faraaq ruuxi ah, iimaan ma leh. qofka hadduusan iimaan lahayn qalbiga waxaa degayo cabsi, qalaq, murug, maxaan ku irahdaa waxay dilayaan jirka difaacaadkiisana way dilayaan. qofkii intaa buusan dhimana buu sii dhimanaya. marka cuduryaashii markii nimankii ay dadki ku dhaceen adduunyo mooyaane aakhira uusan aaminsaneen, cabsidoodii baa aada u badatay, jirkii difaacaadkiisii manaacadiisi waa dhimatay, way u dhimanayaan. asbaabay ka mid tahay, qadar ilaahay baa loo dhimanaya. kow, waxyaalaha jirkooda baabi'iyey aklulmuxaramaat. ilaahay waxyaalo badan oo naga xarimaa jirto, wuxuuna nooga xarimay dhib annaga ay noo keenayso. ayaga wixii o dhan bay banaysteen, ay kamid tahay maalan khamradii baa si caadiya sidii shaahiga loo cabayo, muxaramaadkii kaleo khinsiirkii, maxaan ku irahda maandooriyaashii, jirkii oo dhan hoos buu ka dhintay. korkay ka iftiimayaan, laakiin hoos bay kharaab ka yihiin, ay ka baaba'san yihiin. tii waxay keentay marka inay baaba'aan. muslimiinta khalad hadday galaan, idaa masahum daa'ifu min ashayطaani tadakaruu fa idaa hum mubsiruun. dhib yar hadduu ku dhaco oy ogaadaan meesha ay ka timid, isla markii way arkayaan, wayna ka laabanayaan. ayaga waxa weeyaan marka jirkoodii oo aan iimaan lahayn, alaa bidikri llahi tatmainu lquluub aan la haynin, iyo waxaa u dheeraad ah mukhaalafaadkii qashinkii ay cunayeen. ayib waxaa sii dheeraad ah maladaad, maadaama iga adduunyada keli ay aaminsan yihin waxay haysteen oo dhan aakhira ma u bixin, adduunya lagu bixinayo. maanta wixii jirka uu ka faa'iidaysanaya, macsi ha noqoto, wax lagu raaxaysto, wax la cuno, meel la tago, waxaasoo dhan jirkaay dilayaan. walidaalika mowdka inay ku bataan shay baciida ma aha, iyadoo qadar ilaahay loo dhimanayo, laakiin asbaabtii way ku badan tahay. annaga marka waxaa nagala rabaa inaan harwala samayno, gaalada daba ordino, aan idhaahdo aan farmata gadaal u qabano, gadaal u laabano, nidhaahdo rabbanaa allahuma samicnaa wa atacnaa, inaan nidhaahdo oo aan isdaba qabanno, nafteennana aan badbaadino, koonkana aan kharaabka ka badbaadino. haddii kale waxa weeyaan saan hadday ku socoto, haddaan maanta midkaan ka badbaadno, mid biri kasii weyn baa noo imaanay oo aan taagna u lahayn.
marka caqligiina aan ku laabana. wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed.